بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxaa la yiraahdaa xasan cabdi xasan waxaan xiriirka caalamiga iyo daraasaadka Afrika ka bartay jaamacadda Istanbul Tijaariyat University oo ku taal magaalada Istanbul maanta halkan waxaan u joognaa inaan ka hadalno mowduuc la xiriira dheddigga iyo kaalinta uu kaga jiro dhaqanka Soomaaliyeed marka laga hadlayo daraasaadka la xiriira dheddigga ama jinsiga waxaa jira aragti guud oo dhahaysa bulshooyinka afkaaraha dhexdooda ka jira waxaa sameeya isdhexgalkooda sida daraadeed annagoo aragtidaas ka anbaqaadayna ayaa waxaan rabnaa inaan falanqeyno kaalinta dheddigga uu kaga jiro dhaqanka Soomaaliyeed marka aad fiiriso dhaqanka Soomaaliyeed waxa aan haysanaa lab iyo dheddig waa laba eray oo cilmi ah oo carabiga dhakar iyo untha ama male iyo female af ingiriiska ku noqda labadaasi waxay la xiriiraan astaamo biological ah dheddigga wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah labkana wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah marka aad fiirisid muuqaalka jirkooda iyo laga garan karo dheddiggu badanaa waxa uu diyaar u noqdaa inuu hooyo iyo noqdo halka labkana kaalin aabanimo iyo loo diyaariyo qaybsiga howlahaas ee noocaas ah waxaa go'aamiya habka ama maxaa la yiraahdaa muuqaalka jirkooda sida uu u samaysan yahay sida uu Ilaahay ugu talagalay inay u khidmeeyaan taa markaan ka soo gudubno waxaa jira erayo la halmaala lab iyo dheddig oo ay bulshadu ay isticmaasho sida wiil iyo gabar rag iyo dumar erayadaas markaad fiirisid way ka yara fog yihiin sida kuwii hore oo kale ah oo tilmaamayay hawl qaybsi la xiriira dhanka biologiga la xiriirta tusaale ahaan wiilku waa concept ama maxaa la yiraahdaa mafhuum bulshada ay samayso oo kaalintiisa iyo waxa uu qabanayo iyo waxa laga rabo iyo waajibaadkiisa ay bulshada go'aamiso dhanka kale gabadhuna waa sidoo kale marka aan fiirino dhaqanka Soomaaliyeed eray bixinadaas oo wiilka iyo gabadha ah waxaad moodaa inaysan cadaalad badan sameyneynin oo ay u baahan yihiin in wax badan laga bedelo tusaale ahaan wiil marka la yiraahdo kale waxa la xiriirta halyeynimo isku tiirsanaansho madax bannaani madaxnimo halka gabar marka la yiraahdo oo kale inay gabadhu xaas noqoto guri dhaqato kaliya lagu soo koobo taas waxay keenaysaa aasaaska lagu dhisaayo wiilka iyo gabadha iyo xuquuqdooda inay mushkilad ku keento mustaqbalka dambe tusaalaha koowaad marka laga hadlayo xiriirka u dhaxeeya labka iyo dheddigga ama wiilka iyo gabadha ama ragga iyo dumarka dhaqanka Soomaaliyeed waxa aasaas u ah guurka oo kale inta ugu badan waxa uu ku tiirsan yahay talada ragga ha noqoto wiilka ama ninka guursanaya ama ha noqoto waalidka guurkaas maxaa la yiraahdaa mas'uuliyadda ka ah oo gabadhii iyo wiilkii reerka cusub dhisanayay mas'uulka ka noqon lahaa saas daraadeed waxaad arkaysaa in gabadhu aan waxba la weydiinin diinteena islaamka markaad fiirisid marka guur ay timaado kale waxyaabaha ay shuruudaha iyo arkaanta waxa kamid ah rida tarafayn waxa la yiraahdo labada dhinac ay isguursanay inay raalis ka yihiin laakiin dhaqanka Soomaaliyeed waxaad moodaa inuu cadaadis badan saaro gabadha si ay u raacdo talooyinka aabaha iyo hooyaha kasoo gudub markaad u soo gudubto nolosha guud ee caadiga ah oo kale iskuulka waxbarashada siyaasadda shaqada waxaad aragtaa in marka ugu horeysa wiilka ama ragga uu kaalinta koowaad leeyahay mudnaanta koowaad leeyahay gabadha iyo wiilka iyagoo isku iskuul dhigta isku class dhigta yaa waxaa laga yaabaa in subaxii markii ay soo toosaan ay gabadha waajib ku tahay inay iyada quraacdii samayso gurigii nadiifiso iyadoo laga yaabo iyada iyo wiilka walaalkeeda ah inay isku hawlo isku mid ay wada sugayaan marka guud ahaan marka aan rabno inaan wax isbedel ku sameyno ama ballaarino kaalinta gabadha ay bulshada ku leedahay iyo horumarka ay geysan karto
waxaa muhiim ah inaan marka ugu horeysa bedelno hab fakerka ah in maxaa la yidhahdaa gabadhu kaalin guriga keliya la xiriirta in lagu soo koobo, gabadhu in xaas iyo hooyanimo, gabadhu in kaalin adeegtanimo ah keliya lagu soo koobo. Tusaalooyin badan baan halkan ka bixin karnaa. Soomaalidii hore waxay dhihi jireen rag gabar wuxuu ku maamuli karaa nin, xaaskiisa wuxuu ku maamuli karaa 3 eray oo ah keen, kaalay iyo kari, oo saddexdoodaba la xiriirta amarka iyo hawsha guriga, inay cuntada usoo kariso, inay usoo adeegto, iyo inay maxaa la yiraahdaa ragga iyo dumarka iyo hawlaha ka dhexeeya inay xaajooyinkooda wada gutaan. taasoo noqonaysa maxaa la yiraahdaa sheegeen hab gabadhii qofnimadeedii meel uga dhacaysa inay bani aadam tahay oo xaq leedahay oo maxaa la yiraahdaa raggii oo kala tahay meel uga dhacaysa. marka guud ahaan waxaan kusoo gunaanadi karnaa haddii la rabo in mushkiladaha gabadha Soomaaliyeed haysta, dhaqanka Soomaaliyeed mushkiladaha ka jira ee gabdhaha la xiriira sida cadaalad darrada, cunfiga loo geysto dumarka sida kufsiga iyo dilka, waxaan u baahannahay inaan isbedel ku sameyno caqliyadda iyo fakarka aan ka haysano waxa gabar, dumar, haween waxa ay tahay inaan isbedel ku sameyno. isla maalinta aan isbedel ku sameyno fahankaas aan gabar ama haween waxa ay tahay oon qaadano aragtiyo hor u socod ah oo taageeraya kaalinta bulshada ay ku leedahay haweenta, yaa waxa aan horseedi karnaa inaan joojino dhibaatooyinka dumarku ay la kulmayaan. sidoo kale maxaa la yiraahdaa waxaan kor u qaadaynaa kaalinteedii ku aadan maxaa la yiraahdaa horumarka bulshada. aad iyo aad u mahadsantihiin.